waxaa jiray laba nin oo la kala oran jiray John iyo Michael. waxay ahaayeen laba nin oo isku daa sidoo kale arday jaamacad dhigata. haddaba John wuxuu ahaa nin aad waxbarashadiisa ugu fiican, sidoo kale wuxuu ahaa ninka kaliya ku caanaha jaamacadooda inuu mar walba kaalinta koowaad baxo, sidoo kale sanad walba keeni jiray dhibaha ugu sarreeya ee jaamacadda. halka Michael ahaa nin waxbarashadiisu aad u tayo sarreyso, sidoo kale dabeecad wanaagsan oo ka fiican John dhanka waxbarashada iyo dhanka dabeecadaba. haddaba John oo ku jira sanadkiisii ugu dambeeyay jaamacadda ayaa waxaa dhacday jaamacaddu waxay ballan qaaday ama ay caan ku ahayd sanadka ugu dambeeya in ardayga kaalinta koowaad baxa ama keenaa dhibaha ugu sarreeya in ay ku abaalmariso guri, shaqo iyo gaari intaba. haddaba John oo is ogaa inuu yahay ninka kaliya ugu dhibca sarreeya ama ugu xariifsan jaamacaddan oo isku diyaariyay abaalmarinta ayaa waxaa dhacday in Michael u soo bedesho jaamacadda John dhigan jiray. haddaba John ayaa ogaaday in uu soo galay arday cusub oo la yiraahdo Michael. haddaba John oo isku dayay inuu dabagal ku sameeyo ama uu ogaado ninkan tayada waxbarashadiisu siday tahay oo muddo dheer ku daba jiray ayaa wuxuu ogaaday ninkan inuu yahay nin waxbarashadiisu ka tayo sarreysa tiisa oo ka hor qaadi kara abaalmarinta. haddaba John oo arrinkaas la noqotay arrin caqabad ku ah noloshiisa ayaa ka xumaaday arrinka. haddaba John ayaa u fikiray wax yar kadib wuxuuna isku dayay inuu kiisas geliyo xagga jaamacadda si jaamacadda looga eriyo maadaama uu ahaa liidarka jaamacadda, laakiinse umay suurtagelin. iyadoo arrinkaas uu haysto John ayaa waxaa dhacday in uu arko ninkii Michael ahaa oo ku dadaalaya jaamacaddii, sidoo kale imtixaano yaryar oo testis ahaa oo laga qaaday uu ka dhibca sarreeyo John. haddaba John oo arrinka aad uga xumaaday oo murugo ku noqotay ayaa wuxuu arkay arrinkii ka sii daran oo ah asxaabtii John ka faa'iideysan jirtay ee u taqaanay nin xariif ah inay u wareegeen Michael la saftaan oo Michael ka faa'iideystaan. Michael oo ahaa nin wanaagsan oo daacadnimo buuxda leh ayaa waxaa dhacday in ardaydii oo dhan ay xiiseeyaan Michael, sidoo kale ay mar walba isku dayeen in Michael ka faa'iideystaan. haddaba John oo arkay arrinkaas in ay caqabad weyn ku tahay noloshiisa ayaa ka qaadisay xanwaa iyo murugo aad u badan. wax uu murugooda John markii uu dambeysay wuxuu ku fikiray ninkan inuu saaxiibtinimo been la sameeyo si uu uga horleexiyo wadadiisa kadibna uu halkaa ku dilo. haddaba John oo arrinkaas soo qorsheeyay ayaa wuxuu u yimid Michael. wuxuu ku yiri Michael oo waxa rabaa saaxiib inaan saaxiibno. Michael oo iska ahaa nin iska aaminaad fudud, sidoo kale dadka si dhib yar ku aamina ayaa iska aaminay kadibna la saaxiibay. kadib markii Michael uu la saaxiibay ee in badan saaxiib ahaayeen ilaa dhowr bilood saaxiib ahaayeen ayaa waxaa dhacday in ay maalin soo gaareen ay jaamacadda fasax ka yihiin. haddaba John ayaa soo dhaqaaqay kadibna gurigii Michael iyo tagay. wuxuuna u tagay Michael. wuxuu ku yiri Michael saaxiib maanta maadaama jaamacadda fasax ka nahay waxaan jeclaan lahaa inaan meelaha iska soo daadawno, sidoo kale aan iska soo dalxiisno. haddaba Michael oo ku farxay arrinka ayaa yidhi waayahay, laakiinse xaggeen teginaa? John ayaa ku yiri miyaanad ogeyn inaan leenahay beerta xayawaanada, sidoo kale beerta ay dadku u soo dalxiis tagaan xayawaano badan joogaan. Michael ayaa arrinka ku farxay si fududna ku raacay. kadib waxay tageen beertii. markii muddo 2 saac ay soo daawadeen ay ka yimaadeen ayaa waxaa dhacday iyagoo soo socda ayuu wuxuu ku yiri John ina fariisi Michael oo halkan waan ku nasaninayo. meeshaas oo ahayd meel qol dhexda shabakaga xiran dhinac waxaa kaga xiraysnaa libaaxaas oo ahaa mid dad noqday oo la rabay in la sameeyo. libaaxaas oo meesha uu libaaxa ku jiray iyo qolkan meeshan kale ee la fadhiisay Michael waxa u dhaxeeyay shabag iyo daah laakiin albaab leh. haddaba John ayaa ku yiri Michael oo si yara fadhiiso waxaan inoo keenaya biyaan cabno. haddaba Michael oo daacad iska ahaa ayaa sii fadhiyay. John markuu dibadda u soo baxay wuxuu iska eegay hareeraha, wuxuuna eegay inay dad meelaha joogaan. kadib si degdeg ah ayuu u soo noqday. markuu si degdeg u soo noqday ayaa wuxuu iskaga dhigay meeshii shabaga ahayd ee libaaxa ku jiray in ay tahay meel ay waxyaalaan uu biyo ka soo qaadayo. Michael oo daacad iska ahaa ayaa iska fadhiyay kadibna meesha iska daawanayay. intuu si degdeg ah u soo furay libaaxii ayuu qolkiina dusha kaga sii xiray. markaa Michael ayaa naxay, waa maxay maxaa dhacay ayuu yiri. markaasuu intuu Michael ogaaday uu dareemay inay meeshan wax ku jiraan ayuu ku yiri saaxiib John waxaanoo kale laguma kaftamo meesha iga fur. ilaa hadda Michael ma aaminsan arrinkan. kadib John ayaa intuu qoslay ku yiri saaxiib iga raali noqo, noloshayda ayaa caqabad ku ahayd, waxaan rabay inaan iska ka horleexiyo sababtaas aan kula saaxiibay. Michael ayaa intuu aad u naxay ku yiri saaxiib waxaanoo kale laguma kaftamo ee iga fur meesha, waxaanoo kale wax lagu ciyaaro maaha waa halis. John ayaa intuu qoslay ku yiri saaxiib
باي noloshayda caqabad weyn ayaad ku ahayd waxaad hortaagnay mustaqbalkayga iyo dhammaan noloshayda waxaan kula saaxiibay waxay ahayd in aan noloshayda ka hor leexiyo ee raalahow Michael ayaa ogaaday markii inay arrintu dhab tahay sidoo kale intuu naxay ayuu hadliba kari waayay kadib waxa dhacday in uu John qaato bir kadibna uu libaaxii dhinaca kale shabaga ahayd uu kaga soo mudmado ama ku gujiyo si uu libaax u kaco waxana aqoon ninkan kadib Michael oo naxdin dhaqaaqar la oo dhulka eegay ayaa waxa si kale soo booday libaaxii halkii ayuuna libaaxii ku cunay Michael hadaba dhalinyar waxaan idin leeyahay marka qaar dadka qaar la iskama aamino sidoo kale qof walba ma aha inaad la saaxiibto weligaa cid walba ha iska aaminin